wararka naga soo gaaray gobolka hiiran ee bartamaha Soomaaliya ayaa ku waramaya in barnaamijyada maanta dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab weerar ay ku qaadeen saldhig ciidamada itobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgan ee gobolka hiiran. wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in al-shabaab markii hore ay ku garaaceen xirada ciidamada itobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgan tirmada fiica, waxaana xigtay dagaal toos ah oo dhaxmaray ciidamada itobiya iyo al-shabaab. dagaalkan ayaa la sheegay inuu qaatay muddo saacado halkaasina ku dhaxmarayay ciidamada itobiya iyo kooxda shabaab, waxaana la sheegay in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii ku dagaalantay halkaasi dad rayida. ma ahan markii ugu horeysay al-shabaab weerarada cinkaani ay ku qaadaan fariisimaha ciidamada itobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgan iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka hiiran, waxaana wadar jeero hore al-shabaab weerar ay ugu qaadeen xaruntan ay maanta ay weerareen ee halgan oo ay ku sugan yihiin ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa itobiya qaybta ka howlgalka midowga Afrika Amazon. weli wax warar kama aysan soo bixin saraakiisha ciidamada itobiyaanka ah ee lagu weeraray deegaanka halgan ee gobolka hiiran, balse al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi mas'uuliyadoodu ay lahaayeen isla markaana ay dileen askar ka tirsan ciidamada itobiya. ciidamada itobiya ayaa wadar jeero hore dagaalo culus waxa ay kala kulmeen dagaalamayaasha al-shabaab oo in muddo weerar ku qaaday xarumaha ay ku sugan yihiin. ciidamada itobiya oo soo galay Soomaaliya 2006 ayaa waxa ay inta badan dagaalo xoogan ay la galaan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa ay kordhiyeen muddooyinkii ugu dambeeyay dagaalada ay ku qaadayaan xarumaha ay ku sugan yihiin ciidamada itobiya iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. sidoo kale al-shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu laba jabaaray weerarada oo ku qaadayo xarumaha ay ku sugan yihiin ciidamada Amazon ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada dowladda ee ku sugan Soomaaliya. sidoo kale al-shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa la sheegay in awoodiisa ugu badan oo isku geeyay deegaanada galmudug gaar ahaan gobolada mudug iyo galgaduud. laba jeero hore al-shabaab weeraro oo ku qaaday ayaa deegaanada galmudug waxa uu ku dilay saraakiil fara badan oo waxgal u ahaa deegaanada galmudug ayaana iminka waxa ay wajahaysaa xaladihii ugu dambeeyay kadib markii al-shabaab ay ku xoogeysteen deegaanadaasi.